doorashada golaha deegaanka ee degmada Barawe ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa maanta ka qabsoontay magaalo xeebta Barawe ee caasimadda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaana si wadajir ah uga shaqeynaya howsha doorashada guddiga doorashada wasaaradda arrimaha gudaha Koonfur Galbeed madaxa ka socota CRD iyo hay'ado kale waxaana goobjoog ka ahaa ergooyin kala duwan kuwaasi oo dooranaya ilaa iyo 7 musharax oo ka mid noqon doono golaha deegaanka ee degmada Barawe waxaana maanta la doortay 3 musharax waxaana halkii xildhibaan golaha deegaanka uu codeynayay 5 qof iyadoo halkaasi uu joogay 2 tartamayaal kuwaasi oo labada tartamayaal oo hal kursi ku tartamayay guud ahaan tirada maanta la doortay tartamayaasha xildhibaanada ku soo baxay golaha deegaanka ee degmada Barawe ayaa noqonaya 3 xubnood waxaana ku dhawaaqay guddiga doorashada ee saddexda qof oo dadka oo saddexda xildhibaanada deegaanka Barawe oo habati oo aweysan ka horeey aan wasaaradda mayba sii doontay idikaarku iska shaqeeyay mayba sii doontay warqadii oo intii isu guuleysay mudnaantii hay'adda wasaaradda sii doontay yagaan ku saar doonto meelaha aan ma hadnaqay email raay dadkii oo email raay ka soo qaybgalayaasha xildhibaanada guddigii oo hoosaadkii guddigii korjoogada hayeen hay'adoogi oo meel raay ilaa iyo 3 hay'adood oo meelanka kulma oo hadsi goonay hoola ma wadana meel raay CRD iyo FCA hoola wadaan aysa oo yan meel raay guddiga oo meel raay technical ka hadda meel raay galanta ka hayt awaas Sheekh Maxamed oo naqadi kursiga inka horeey oo golaha deegaanka degmada Barawe hakabaha kursiga ya aan weerana awaas Sheekh Maxamed حاجه فيك الراجل فين نسيب اول شيخ محمد سير xildhibaankii la maatay xukuumadda degmada Barawe oo usuun hay beelatuna yahay gaar ahaan reer Cusmaan hay sunan weeraan Axmed Abuko Xasan haddana mayba meel mudnaan le meel raay gabartiin horeeyay oo haddana ka badsa meel raay Barawe golaha deegaanka ka badsa Barawe waana yana mudnaan la gabartiin horeeyay oo ka batu ma in weereeyay Man City Abdullah Maxamed aan weere iyadoo naqad gabartiin horeeyay oo maamulkii degmada Barawe ya deeka ka guuleysay waxaana ugu dambeyn soo xiray xilwaan diinkii oo ka mid ah xilbaanada Koonfur Galbeed waxa qalbigeygi maaragtay aad ugu faraxsan sida habsamida ah iyo sida quruxsan oo ay maaragtay deegaankii gorihii deegaankii maaragtay la amaamuday ama la soo waday wax badan ama wajiyaal fara badan wariyaalka diiwan soo maray juhdi badan la geliyay ilaa maaragtay waxa waaye waqti badan la soo qaatay oo maanta maaragtay natiijadii la maaragtay waxa waaye oo la jeclaa ama sidii la rabay ay uga bilaabatay deegaankii maaragtay maamul goboleedka maaragtay waxa waaye magaaladaadii maaragtay degmada Barawe maamul goboleedka ahayd ee maanta ugu horeysay maaragtay waxa waaye deegaankii la amaamudaayay oo maanta u bilaawday oo haddana maaragtay awladii ugu horeysay ee beelaha tunni ee Shangamaas beesha daaqtira ayada maaragtay ay ugu lagu bilaabay Cabduqaadir Maxamed Faqi Som TV Soomaaliya Barawe